هذا علي عبد الشيلو oo ku magac dheer Cali Santuur waa odayada magaalada Beledweyne oo waliba arrimaha qabaa'ilada ka taliyo ninkaasi arrimo ka dhacay baadiyaha oo ay isku qabsadeen dadka reer guurayga iyo magaalada dadka joogo odayaal kamid ah Israaceen waxay tagay meesha leeyahay Luuq Jeelow arintii ay u tageen meeshii waa soo dhameeyeen waa ku guuleysteen arintaas oo arin muxuu ahaay ay isku haysteen waa dad ay reer guuray maadaama ninkaan nabadoon uu yahay magaalada iyo meel kasto ay wax ka dhacaanbo odayada waa tagaan oo ay ka shaqeeyaan asagu wili wuxuu ahay odayaasha magaalada oo arrimaha hadii ay baadiye wax ka dhacaan nabadeynta iyo colaadaha iyo waxyaabahaas wax ka damiyo colaadihii sokeeyo had magaalada ka dhacay buu nabadoonadii baadiye aadi ayuu kamid ahay oo guddiga dhexdhexaadinta raacay sidaas oo kale hadana arrin sidaas oo kale ayaa ka dhacday baadiyaha oo dhinaca asu heebta iska soo jeeda ah oo nabadoonku ku yahay arrintaas ayay aadeen odayaal badan ay ahaayeen marka arrintii markii dhameeyeen ay ku guuleysteen iyo arrintan kale ay soo dhaxbaxday marka ujeedada oo ninkaasi nabadoonka ah loo beegsaday iyo wax hadda anaga aan gari karna ma ah marka qaab noocee ah loo dilay maxabada lagu dhuftay ma xariga lagu marjiyay qaabka loo dilay iyo meesha meedkiisa laga helay waa mahadsantahay meesha hadda meedkiisa laga soo qaaday waxa weeyaan meel magaalada u jirta 8 kiiloomitir oo dhinaca hadda magaalada waa tahay dhinaca Luuq Jeelow xaqiisa Muqdisho xakeeda way marka waxa soo baxay dad oo baawurey waa taqaana waa iska gooraysa hadii kuwa ay ganacsiga iyo kuwa nooc walba isugu dhex jiro ninka marka waxa laga helay meedkiisa meeshii hadda 8 kiilo magaalada u jirta waa xirxiraay macnaha wuxuu u xirxiraay gacmaha ayaa waxa laga hoos bixiyay lugaha qof fadhiya camal ayuu ahaa asaas loo xirxiray kadib waxa laga jaray qoodh ayaa laga jaray halkaas oo maxaa ahay luqunta ayaa laga jaray madaxa iyo asiga law meel kala yeeleen marka odayaashii soo qaaday oo dhaqday meedkiisa oo duugtay sidaas ay ku soo kala qaadeen asoo law meel kala yeelo wararka aan heleyno adiga hadda waxa tiri arin nabadeen ah ayuu u tagay wararka aan heleyno waxay sheegayaan in qof shabaab kamid ah oo magaalada dhex joogay oo ciidamada dawladda u gacan galiyay xarun dhaqan celin la geeyay kadibna loo gudbiyay magaalada Muqdisho wararkaas ma jiraan waxa hore u jiray muxuu ahay laba nin oo muxuu ahay mid kamid ah si sax ah u sheegi karno inuu amniyaad kamid ahay waliba ay isku hayb ahaayeen awoowo iyo waxyaabahaas wuxuu ahay muxuu ahay meelaas uu ahaa ayaa Beledweyne laga qabtay waliba waxa la saaray diyaarad Muqdisho laga dejiyay ciidamada qaybta nabadgelyada ee Muqdisho lagu wareejiyay sabab hadda isku soo baxa ma aqaano in muxuu ahay in ka soo raboodka saaki aan u diray ciidamada qaybta dababaaris aan u dirnay oo wali aan ka sugayno qaabka Beledweyne ku yimid in maxkamadda soo maray iyo inuu dhaqan celinta la geeyay in nabadgelyada ka baxsay intaba dhinac kasto ayaan u dirnay raboodkaasna maanta ayaan sugaynaa hadii Ilaahay raali ka dhigo ninkii asiga ayaa waxa ka soo dagay Beledweyne inuu yimid raadkaas marka waxaan aan ka helnay inuu ninkii asiga ahay uu dilay gacanta uu lahay asiga warbixinta marka aruurin kadib marka ma xaqiijisan cidda dilka geysatay inay tahay qabaa'il iyo inay tahay ururada dawladda ka soo horjeeda ma jirto wax qabaa'il oo muxuu ahaa ninkaas madoonka dilay ma jiraano al-shabaab ayaa dilay waliba ninkii asiga ahaa ayaa uu ka dambeeyay waliba wuxuu ahaa ninkaas muxuu ahaa qolada amniyaadka ayuu ahaa marka sidaas ay ku caddahay arrintaasi say u dhacday inay shabaab yihiin ay caddahay